السلام عليكم. kusoo dhawaada saaxiibayaal kanaalka cilmi baaris. Warbixinteena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa macluumaad ku saabsan waddanka Argentina. dalka Argentina waa waddan aad u ballaaran oo ku yaala dhanka koonfureed ee qaaradda Ameerika. waa dalka 8aad ee adduunka ugu weyn, waana waddanka labaad ee ugu weyn koonfurta Ameerika marka laga reebo Brazil. wuxuuna qiyaas ahaan la eg yahay 3 meelood meel waddanka Mareykanka. bedka dalkan Argentina wuxuu gaarayaa in ku dhow 3 milyan oo kiiloomitir, wuxuuna noqonayaa waddanka 8aad ee ugu dhulka weyn adduunka. Argentina waxaa xuduud la leh buuraha Andes iyo waddanka Chile oo galbeedka xiga. dhanka bari ee buuraha Andes, gudaha waddanku waa dhul fidsan kaas oo leh caws bacrinsan oo loo yaqaano Pampas. xuduudka bari ee dalku waa badweynta Atlantiga. Bolivia waxay ka xigtaa waqooyi galbeed, halka waddanka Paraguayna oo xuduud kala leeyahay dhanka waqooyi. lafdhabarta buurta dheer ee Andes oo loo yaqaano Andes Cordillera waxa ay xuduud dabiici ah oo dhan 3195 mayl ay la leedahay dalka Chile. dadka iyo dhaqanka Argentina waa waddanka 32aad ee ugu dadka badan adduunka, waxaana ku nool in ka badan 45 milyan oo qof. si ka duwan sida Mexico iyo wadamada South America sida Peru iyo Ecuador, Argentina waxaa ku yar dadka u dhashay dalka. dadku waxay ka kooban yihiin ilaa 95% dadka soo jeeda qaaradda Yurub. badankoodna waxay ka yimaadeen wadamada Talyaaniga, Isbaanishka iyo Jarmalka. ku dhawaad kala bar dadka ayaa ku nool agagaarka caasimadda dalka ee Buenos Aires. Buenos Aires waxaa loogu yeeraa baarista koonfurta Ameerika sababtoo ah waxaa ku badan saameynta ay ku leedahay qaaradda Yurub. dadka waddanka Argentina waa dad aqoon sare leh. 97% dadku waa kuwa wax akhriyi kara waxna qori kara. sidoo kale kubadda cagta waa ciyaaraha ugu caansan dalka Argentina. dhulka dabiiciga ah ee dalka Argentina waxay qani ku tahay noocyada xayawaanka. xeebta Patagonia waxay hoy u tahay maroodiga, qolleyda iyo libaax-badeedka. sidoo kale biyaha Atlantika waxay hoy yihiin noocyada kala duwan ee malayga sida shark, orcas, dolphin iyo salmon. waqooyiga waxaa ka jira noocyo badan oo bisadaha waaweyn ah sida cougar, jaguar iyo ocelot. waxaa kale oo jira yaxaaska iyo xayawaanka loo yaqaan cayman. sidoo kale shimbirta oo goronyada ee loo yaqaano flamingos waa mid laga heli karo gudaha waddankan Argentina. qubada iyo diidinka ayaa sidoo kale ku nool waqooyiga kulaalaha hoose. dhanka kale Patagonia waa deegaan aan badnayn oo qani ku ah khayraadka dabiiciga iyo duurjoogta oo ay ku jiraan xayawaanada Heranos, Condores, Pampas, diidinka iyo kuwa lamida. buurta ugu sarreysa ee taxanaha Andes waa buurta Cerro Aconchia, taas oo kor u taagan dhirir dhan 6960 mitir. waqooyi bari Argentina waxay leedahay kaymo roobeed iyo biyo dhacyo dabiici ah. dhanka dawladda, dalku waa jamhuuriyad federaal ah. waxaa jiray dhowr madaxweyne oo si dimuqraadi ah loo soo doortay kadib sanado badan oo qalalaasa siyaasadeed ah. shirweynaha qaranku wuxuu ka kooban yahay golaha gurtida oo leh 72 kursi iyo golaha wakiilada oo wadartoodu tahay 257 kursi. waxaa jira 7 garsoore oo ka howlgala maxkamadda sare, laakiin tiradaas ayaa laga dhigi doonaa 5 sanadaha soo socda. dhanka dhaqaalaha dalka Argentina waa in ku dhow 700 bilyan oo dollar, waana waddanka 21aad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka. dhaqashada idaha, soo saarista saliidda, macdanta, beeraha iyo dalxiiska ayuu ku habboon yahay dhaqaalaha Patagonia ee waddanka Argentina.
markan aan fiirino taariikh kooban oo ku saabsan Argentina. Gumeystigii Isbaanishka ayaa yimid waddanka Argentina sanadii 1516 wuxuuna dalka xukumayay 300 oo sano. sanadkii 1860 ciidan Ingiriis ah ayaa ka awood roonaaday ciidamada Isbaanishka ee caasimadda Buenos Aires, waxayna weerareen jasiiradaha Malvinas oo sidoo kale loo yaqaan jasiiradaha Falkland. dadka deegaanka ayaa dib u qabsaday caasimadda, laakiin weligood dib uma qabsan jasiiradahaas. dhacdooyinkaasi waxay horseedeen inay dabciyaan qabsashadii Isbayn ee Argentina. sanadkii 1810 ciidamada Napoleon waxay qabsadeen dhammaan magaalooyinkii waaweynaa ee Isbaanishka ee waddanka Isbayn. dadka Argentina ayaa awood loo siiyey inay gacanta ku dhigaan dalkooda, waxayna xornimada qaateen 1816. sanadii 1946 Juan Perón wuxuu noqday madaxweynaha dalka. sidoo kale xaaskiisa Eva oo loo yaqaano Evita waxay dawladda u samaysay aasaas wanaagsan, waxayna siisay lacag caddaan ah, sidoo kalena caawisay dadkii saboolka ahaa. sanado badan kadib sanadkii 1902 ayay Evita u dhimatay cudurka kansarka. dadkuna aad bay uga naxeen geerideeda. waxay astaan rajo u ahayd dhammaan masaakiinta Argentina. intaas kadib madaxweynihii dalka Juan Perón ayaa lagu qasbay inuu xafiiska ka baxo kadib markuu isku dayay inuu kordhiyo awooddiisa xukunka. xitaa kadib markuu xafiiska ka tegay, xulafadiisii waxay sii wadeen inay u dagaalamaan awoodda siyaasadeed. kadib sanado badan oo rabshado ah iyo dagaal sokeeye, Perón ayaa dib loogu doortay madaxweyne, iyo xaaskiisa cusub ee Isabelén waxay noqotay madaxweyne ku-xigeenka. si lama filaan ay u dhintay madaxweynihii dalka, Isabelénna waxay noqotay madaxweynihii bedeli lahaa. wax yar kadibna dhaqaalihii dalka ayaa burburay. milatarigu wuxuu talada dalka la wareegay sanadii 1976, waxaana dhacay xilli rabshado ah oo loogu magac daray dagaalkii wasakhda ahaa. xilligaas oo lagu dilay in ka badan 20,000 oo shacab ah. sanadkii 1982 madaxweynihii Argentina General Leopoldo Galtieri ayaa ku duulay jasiiradaha Falkland ee xeebta badweynta Atlantiga, isagoo u malaynaya in Ingiriiska aanu dagaal qaadi doonin. Galtieri si qaldan ayuu u xisaabtamay. ciidamada Ingiriiskuna waxay ka guuleysteen guul fudud. jabkii kadib waddanku wuxuu u dhaqaaqay dhanka dimuqraadiyadda iyo xukunka rayidka. waddanka Argentina, koonfurta qaaradda Ameerika.